Ugaarsadaha ugu weyn caalamka waxaa lagu sheegaa inuu yahay dubka, miisaankiisu ama xajmigiisu ka weyn yahay 1000 kiilogaraam. Waa geesi aan gamban, waana horar aan soo hoyin isagoon wax soo halayn. Waa halis qarsoon oo hilibkiisa badani dagayo bahla badan oo war iyo waayo u hayn hoogga iyo wacdaraha uu ku dhigo bahalkaani soo majeestaha ahi. Dhab ahaan waa tiro yar xayawaanada wajihi kara kana hor imaan kara ugaarsadahan aan waxba reebinin ee dubka. Bahlada ka hor gudboon waxaa ka mid ah shabeelka oo aad wada garanaysaan halistiisa iyo dhiiranaantiisa aan wax loo dhiga lahayn. Waa geesi kale oo xawaaruhu u dheer yahay bahalnimadiisa bilaa xuduudka ah. Waa mid fudud oo tilaaba qaadku kuma adka, xawaaraynta iyo kala wareegga xagaladuna kuma cusla. Waad wada taqaanin midda faalla badan iyo faanin kale uma baahna. Waa mid ka mid ah bahda bisadaha kuwooda waaweyn isku soo wada duube haddii ay kulmaan labadan bahal waa dubka iyo shabeelke. Hubaanti kuma idlaado dagaalkii dhex maraana waa mid lagu riiqmo. Waxaa intaasi in ka badan kaga bogan doontaa muuqaalkan ee inakeen. Muuqaalkan waxaa meel keen ah isku helaya dubka iyo shabeelka, waxaana ka qarxay dagaal adag oo aan la isku turayn. Bahalnimada iyo naxariis la'aantuna tahay mid ka mid ah tilmaamaha ugu cadcad ee mid walba uu muujinayo ama uu soo bandhigayo. Markii dagaalku socday dhowr daqiiqo, shabeelka ayaa kaga xoog roonaaday dubka goobta dagaalka, laakiin siima dheerin waqtiga shabeelku dubka maamuli karo. Dubka waxa uu soo ceshtay awoodiisii wiiqantay, waxa uuna la soo baxay dagaalkii lagu yaqaanay. Shabeelkiina waxa uu bilaabay inuu dib uga gurto goobta dagaalka maadaama uu arkay inuu dubku xanaaqay, dagaal aan dhammaad lahaynna uu weli diyaar u yahay. Daawade daawo muuqaalkan oo yara eeg sida dagaalku u dhacay. Daanta jiinka ama webiga dhinaciisa laba shabeel ayaa dubka u soo dhawaaday oo weerar ku ah isaga. Inkastoo ay laba ahaayeen, haddana dubku isma dhiibin oo waxa uu go'aansaday inuu iska dhiciyo sidoo kalena mudankooda marsiiyo. Xoogaa ayuu la halgamayay, balse nasiib xumo inuu baxsado ayaa u soo baxday maadaama uu dareemay in ugu dambayn ay ku wadaan guuldarro. Waxauna cagta saaray waddadii fashilka maadaama laga tiro badiyay la iskuna soo hiiliyay.